damiir aabanimo iyo dareen hooyanimo labadaba ma laha waalidka gabadhaas da'da yar ee saqiirta ah dhalay ee go'aansaday in gabadhooda oo 6 jir ah ayaga hunguri u raadiso الله محا آخر سؤال تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدبا إذن سلام يا داو ضيال ميل كسته أو أدجوكتان يسي كستو موقعنا يا مقال كينبا إذن سو غاريو هذا موقال كأن حال كان إذن كلو داقاي وموقال على الحمو وركوتالو مرغو انتبا حنبارسن waxay soo gaaray muuqaal aan aad uga naxay gabar yar oo saqiir ah oo 7 jir ah ayaa waxa lagu dilay magaalada Muqdisho hadda gabadha saqiirta ah ee 7 jirka ah muddo sanad ama 2 sano ah waxay u shaqeynaysaa famil buuxa hadda waxa shaqeynaya fahan waa gabar 7 jir ah hooyadeed iyo aabaheed ayaa waxay go'aansadeen iimaan darro halkii ay ka gaareen gabadhooda oo saqiir ah inay u geeyaan naag kale Soomaaliyeed kadibna ay yiraahdaan gabadhan ha ku shaqeyso lacagta aad siisana annaga ina si aan u cunno iimaan darrada waalidka halka ay ka gaarto bal eega waa gabar saqiir ah waa xilligii la barbaarin lahaa ee la korin lahaa ee wax la bari lahaa ayuu aabahaasi iimaanka ka dhintay wuxuu go'aansaday gabadhiisa 7 jir ah inay u shaqeyso muddo sanad ah ayay waxay shaqeysay ayuu dhuuntiisa marinayay kansar Allah ugu dhigay ma dhaha adduunka dadka qaar carruur ilaahay ma siinin dadka qaar ilaahay ubad ma siinin waxayna ku raadiyaan hanti dalalka dibadiisa ayay waxay u aadaan in uu ilaahay mar uun ku arsaaqo hal ubad ba ilaahay ha ka dhigay ee isbitaal walba u taagan yihiin goob kasto caafimaad ah oo lagu yiraahdo ubad ayaad ka helaysaa ama daawo ayaad ka helaysaana way aadaan quraan ayay saaraan ilaahay waxay ka baryaan sidoo ubad ugu arsaaqi lahaa ninkan iyo naagtan gabadha 7 jirka dhashayna oo ilaahay ku irsaaqayna waxay go'aansadeen in ay ku shaqeeyaan shaqaale ka dhigaan xilligii mustaqbalkeedii iyo nolosheedii ay dhisi lahaayeen ay waxbarasho diin iyo maadi geyn lahaayeen ay waxay go'aansadeen iimaan darro halka ay ka gaareen in ay ku shaqeystaan kuna xamaashaan haddaba naagtii Soomaaliyeed ee gabadhii yareed loo geeyay 7 jirka ahayd ayaa maanta sabab waxay u noqotay gacanteedii inay ku baxdo oo gabadhii waa ay saqiirto waa dhimatay gabadhaasi muddo sanad ah ay u shaqeynaysay subaxnimadii saaka eed markay gabadhii soo toostayna waxay diiday dabka inay shido ay cunno kariso waa 7 jir markay diiday waxaaba iiga sii daran naagtay u shaqeynaysay waxay tirwaan xanaaqay naf ii sheedaan baa i kiciyay kadibna waxaan bilaabay gabadhii yareed in musqusha inta geeyay madaxa darbi kaga garaacay ilaa ay naftu deysay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun inda adeegeeda waxay wacdo hooyo gabadha hooyadeed waxayna ku tiri gabadhaadii musqusha ay ku kuftay madaxa ayaa dhaawac ka gaaray kadibna waa ay dhimatay aabihii iimaanka darnaa ayaa la wacay waxaan lagu yiri gabadhaadii musqusha ay ku dhacdo waa dhimatay kadib ayuu wuxuu bilaabay inuu police station ka tago halkaana oobi ka soo qoro laamaha amaanka halkii soo gaaray kadibna gabadhii baaris ayaa lagu sameeyay waxaa la ogaaday si kas ah gabadhan in loo dilay dhaawacyo badanna madaxa ay ka qabtay waxaa gacanta lagu dhigay gabadhii 7 jirkeed ee saqiirta eed naagtii dishay waxayna halkaasi ku qaratay in ayada ay gacanteedii ku dishay laakiin naf iyo shaydaan ay ka tanbadiyeen miirkeedan uusan joogin xilliga xanaaqa dartiis markay dishayna ay ku soo toostayba in gabadhii ay dhimatay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun war waxaan idin hayaa muuqaal aabihii gabadha dhalay oo kaga warramayo dhacdada iyo sidii gabadhiisa ay u dhimatay bal damiir laawahan aan isla daawano marka hore وين الله المدة اللي جت لبض سنة سأقول كوجنا مركي أنا أقول لما كنت تقول جرن مركي ساكي أنا قال لما سوي ولي بروح الله وعي هو يدي ذي الله وعي المغلسة هو يدي مدام الله وعي واحد صار وعي هو الشيء جبرت ذي أنا إن جبرت داعي معناها مسكوش كلها داعي أو مسكوش ده حتى أقدر كذا نبجق ياهي
daqarna ku yaal marka aniga waa ku qanci waayay waxaan tagay saldhiga ayaan tagay saldhiga markaan tagay waxaan ku sameeyay dabagal ciidankii aniga waa israacnay saldhiga ayaan tagnay guriga ayaan tagay dhibku ka dhacay iraade waxaan u cadaatay in gabadh la falay oo madaxeeda dhibaato fara badan oo jirkeedu ka muuqdo aysan ahayn mid saaka la dilay kaliya ama dhib loo geystay dhib fara badan uu ka muuqday waxayna ka dhigtay gabadhu macnaha sida ay iyadu macnaha u doonaysay ama ay kiis ka dhigato qeyl ku baxsatay oo artay ka dhigato in sidii maanta qof oo dhintay aroortii oo kale ah ay rabtay inay ka dhigto si ay noo sheegtay iyadoo hadda rabitaankeeda ay nooga hadashay laakiin ma aysan ahayn waxay sheegayso xaqiiqda ku saabsan waa wax xaqiiqda ka fog ama aqliga ka fog aan qaadan karin maadaama hadda xiran tahay maxaad codsanaysaa qoyska waxaan codsanaynaa ama aniga aan codsan lahaa in cadaaladda la soo hortay daawadayaasheena qiimaha badan waan filayaa muuqaalkii inaad daawateen damiir aabanimo iyo dareen hooyanimo labadaba ma laha waalidka gabadhaas da'da yar ee saqiirta ah dhalay ee go'aansaday in gabadhooda oo 6 jir ah ayaga hunguri u raadiso alla maxaa aaqiro su'aal taala waxaan kaloo halka idin kula wadaagayaa gabadha wax dishay ee hooyada ah ee aan damiir naxal lahayn ee aan damqasho lahayn oo naxariis hooyanimo lahayn ee gabadha dishay ayada oo qiranayso dembigii iyo dhibkii u geystay gabadha iyo qaabkii u dishay bal indha adeegeeda asla daawano هنا عيديد أيوه أيوه قبلنا شغلة يعني مغرب كم كان كل عرضه شلا مخرج أيوه هذا واحد عندنا هذا أيوه ساعات واحد مرة بريد بشنا أنا عندك كي شيء جديد بس كحنا قبل ما تقال حياة يحكمي واحد بريد واحد إن شاء الله دربي جاي دربي جاي أيوه مش كيس كذا المال أو كذا وسانو كلاهي أقوى دلعنا الموتى كذا ما يسمع كعيل كي يحكمي واحد وأنا قلت نبتشرك وعيس هذيك اللهم لو مرك دقرك بدنا كويان تقرأت أبو حاول جوز ما يجوز يا جماعة دقرك لا توع كويان متكوين كان سدح كلا تعاملوا السجوا كلا تعاملوا كي يجري لكن أبوي تقرأ أكلكم درب أكو على السي أجرسيين لا ولا دقرك ما يشودوا ما شيء ما يشودوا لا ما يرد العسل أجرسية معقولة لكن كوين مركا أكو على أنا كعشان عصوتا وكل العيشين تسوون مركز مسك عداد مركا أكو على الناس مسك عداد وحناك دي محكمة سنين مركي أنا قبل مركز كبعية باقي بريم أيه مع هذا كعد سنة يسمى مركا اللي يعرف فيها موحي شرعي له وقال سيد مركا مش خش كله فت الدرب كله فت كبعد حسين نحط عنده ما دع عليه مركا كله عليه واحد تلاقي يسين ولا المركا واحد يا طيب قضية يسين ولا هذا maxaa ka codsanaysaa dawladda waxaan ka codsanayaa inay ii fududeeyaan wixii dhacwaa dhaceen markii shaydaan xiriiro markaan wax dilaayo inuu ogaalka iga tagsanaya oo malaynaa ma ogeen waxaan sameeyay waa xakamay daawadayaal waan filayaa inaad daawateen wax ka indha adag weligii ma aanan arkin ka naxariis daran ka qalbi adag gabar yar oo saqiir ah oo sabi ah oo guriga u shaqaynaysay oo cunnada u karinaysay oo dharka ka dhaqaysay oo guriga dhan gacanta ku haysay hadda waa 7 jir waa xilliga la rabo in la toosiyo la yiraahdo aabbo inta ka soo bax hooy inta ha marin aanan kala aqoonin samaanta iyo xumaanta ayaaba hooyo aabbo waxay u dirsadeen inay u soo shaqayso iimaanka Allah idinka qaad haddaba waxaan aragnay gabadhan saqiirta ah ee la dilay ee gacanka xaq daran ee dishay gacantii dishana ee qiratay waxaa suuragal ah dawladda Soomaaliya in gabadha saqiirta xaqeeda aan loo soo dhicin waliba aan la xukumin hooyadan damiirku ka dhintay ee gabadha saqiirta dishay waxaa laga yaabaa inaysan xaqooda u soo dhicin waxaa kaloo suuragal ah in dhaqan Soomaali gabadhaas xaqeeda lagu doodsiyo aabbahan gabadhiisoo 6 jir ah shaqo u dirsaday haddii la yiraahdo adeer wixii dhici lahaa way dhaceene sida ay ku hadlayso naagta wax dishay wixii dhici lahaa way dhaceene wax qoranay ahaayeene naf ii sheedana gabadhina kaxeeyay dhibkina waa dhacay see wax u dhaceen lama dhahee see wax loo xalliyaa bal $10 amba $50 ama $100 qaado hoosh aan sida ku dhameeyay haddii la yiraahdana waxaan aaminsanahay inuu aabbahaas haye maahana uusan maya dhihin bal daawade
adi aan ku daayay haddii gabadhaan dembiga gashay ee gabadhaa saqiirta dishay adigoo maxkamadda fadhiya hortaada ka qirata waxaad ku xukumi lahayd waxaad ku xukumi lahayd qaybta commentiga nagula wadaag dadku maasantii daawashada muuqaalkan haddaad nagu cusubtiina waxaan kaa codsanayaa inaad channelka subscribe saarto sidoo kale muuqaalka aad like saarto share gareyso si muuqaalkan uu gaaro saaxiib badan muuqaalkan xiga intaan kulmi doono fi amaanillah